marka aad eegto waxa ay sheegayaan faa'iido ku jirta dhankan khasaare uu ku jira oo volcano markuu dhaco dad buu layn earthquake markuu dhaco magaalo baabiin waxbuu baabiin laakiin ma wada aha share masaa'ibu qawmin cinda qawmin fawaa'idu dad yar oo istitnaa buu shar ku yahay laakiin caam ahaan nolosha wuxuu yahay maxay faa'iida ama waxtar buu yahay sidaa ogeed ba waxay tilmaamayaan sharku dhan walba sharka ma aha dhan kale waa jundun min jundillaahi wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay ku ciqaabo qaar dembi sameeya ama wax ka sameeya waa lagu ciqaabaa markaan soo duuduubo biyo kulul buu soo saara kan buu soo saara wax badan bay sheegayaan laakiin waxaasoo dhan markaynu ka nimaado maalan marad xanuunku waa dhib biniaadamka ku dhaca waa imtixaan la imtixaamayo dhan kale waa vaccination xanuunada inta u badan ee xasaanay qofka biniaadamka u sameeyaa mar dambe xanuunkaas inaanu dib ugu dhicin bay u badan tahay idan weji marka laga eego waa dhib weji kale marka laga eego faa'iiduu yeelanaya maalan dagaalada dunida ka dhaca waxay leeyihin dagaalada dunida ka dhacay min bacdi haabaa ayuu yimi axlaaftan waaweyn iyo iskudayadan waaweyn ee la isku dayo wadannadu inay midoobaan ama takatulaadkan ama si kale haddaynu eegno waxay idhaahdaan mar kastoo dagaal ama dhibi dunida ka dhacday waa mar kastoo bini aadamka aqoontiisu horumartay taa macnaheedu waxa weeyaan any inventioniska waaweyn ee dunida la sheegay xilli dagaal buu soo baxay raadaar dayuurad waxa la sheegayo dhan inta ugu badan leh marka nafta la isugu kaa keenaa baad tijaabinaysaa sidii waxa kanaad isaga difaaci lahayd markaasaa dagaalkii labaad ee dunida sababay in raadaarna la sameeyo isagaa sababay raadaarka si loo sameeyo transistors in la keeno transistorska markii la keenayna waxan baa ka dhashay kombiyuutaradan iyo digdigtan iyo waxan oo dhan yacni dagaalku cidhiidhigu biniaadamka geliya waxay keentay inuu biniaadamku xog iyo xoolaba iyo caqliba geliyo inuu inventions inuu wax soo saaro saa daraaddeed waxay yidhaahdaan alquwa nawawiya dagaal ma keenay quwa nawawigu dhib uu keeno magaalooyin baa lagu qarxiyey laakiin mise kaloo faa'iidaa buu keena laydh baa laga dhalaya kan baa laga dhalaya waxan baa lagu sameeyaa positive tiro badan oo dhanka kale ah buu leeyahay waxaan tayaaraat nafaatha ah oo dhan cod ka dheereeya caynkan u dheereeya oo dhan waxa sababay dagaal baa sababay in la helo dawladaanu madfacu gaadhayn ama kari gaadhaynin baa keensatay sabab u noqotay in satellite-yadan iyo waxaan cirka loo diray iyo telecommunicationadan iyo waxaanaad waddo dhan inaad dhegaysato dagaalka cidhiidhigiisiibaa waxay keeneen inuu ka dhasho waxa kane dagaal iyo cabsida biniaadamku kala qabaa waxay keentay waxanoo satellite iyo waxanoo interneta iyo waxanoo telecommunication aad isticmaasho in la isbasaaso oo dunida sare la wada tago oo loo kala dheereeyo waxa keenay colaad rag isku hayay maraykan iyo raashiya beritamay colaaddii waxay keensatay kana gantaa dilay ka kala diray ka kala diray telecommunication baa la diray kan baa la diray basaasnimaa la diray waxan baa la diray waxoo dhan dagaal baa u sababaha idan waxay yidhaahdaan dagaalku waa tadmiir laakiin taqadumku bay yidhaahdaan intiisa badan ee cidhiidhiga biniaadamku markuu galu yimaada xataa dawooyinka waaweyn bay yidhahdaan bensaliin iyo waxa kan amraad xoogani wakhti ay dhacday ayuu biniaadamku si isu mashquulinaya wuxuu soo saaray inuu helo antibioticska kanuu waxan kaga hortegayo lowlaa aanu kana heli lahayn muu sameeyeen bay leeyihin idan waxay leeyihiin sharku dhan walba sharka ma aha walidalik baa imaam alghazali wuxuu yidhaahdaa naqsu lkowni caynu jamaalihi walow istaqaama alqawsu lama ramaa bay yidhahdaa universku inuu nuqsaan leeyahay waa quruxdiisa baabuu leeyahay hadduu toosnaan lahaa qaansaduba hadday toosantay leebka ma ganta bay yidhahdaan qaansada dee bahalka laga gama waa soo qalloocaya hadduu straight ahaan lahaa bay leeyihin leeba kama dhicin waxaa la yidhahdaa dhibtu biniaadamka laftiisay faa'iido u leedahay waayo waxay rabaysaa biniaadamka cala aljildi bay ku rabaysaa adkaysiga waxay biniaadamka ku rabaysaa maxay macdanu rijaal bay soo saartaa mashkilaadka biniaadamka soo kala saara soomaalidu waxay dhahdaan inta nabadis joogtaan ninba laba nin leegiyey laakiin dhibti iyo mashkiladu markay timaadaan raganimada biniaadamku soo baxdaa biniaadamka iyo siduu u kala far fiican yahay ama u kala caqli badan yahay ama u kala waxtarsan yahay baa soo baxa waa kii abu tamiim kii gabyayay wuxuu yidhi lowla almashaqatu saada annaasu kullihimu aljuudu yafqaru waliqdaamu qitaalu
haddii aan dhibtu jirin buu leeyahy ninkan gabyaaga dadkuba madax bay soo wada bixi lahaayeen laakiin waxbixintu qofka way faqriyaysiisaa laakiin haddana sakhaagu waa wax magac iyo maamuuska keena dagaalka inaad jari noqoto horumartaa geeri bay keentaa laakiin waa waxa magac iyo maamuuska keena buu ku tilmaamaya waxaan uga jeednaa nolosha kow shar maxdiya kama jiro wax dhan walba shar ka ahi ma jiro ee waxa wejiyada ka mid ah evil uu ka muuqanayo dhan badan oo kale buu ka yahay maxay ayuu khayr ka yahay ثاني الأمر وحين لأنهاي وحانو قفكا شركة كورمية فهمين دوني دان دمانتد بوحي الله أبو ري أو ما لسكو اتحامين نقطه